waxaan kula wadaagayaa sababta ilaa iyo hadda kooxda Daesh ay dowladda Puntland ay uga adkaan laadahay. Waxaan ku hayaa muuqaal arintaasi cadeynaya oo muujinaya sababta in ka badan 2 sano ay dowladda Puntland ay kooxda Daesh uga adkaan laadahay. balse intaanan kula wadaagin muuqaalkaas iyo cadeymaha aan ku hayo waxaan ka codsanayaa in ay YouTube ku soo birto oo subscribe dhahdo muuqaalkan like saarto kambalelkana furato si ay ku soo gaaraanin warbixinada ku saabsan deegaanada Soomaalida gaar ahaan deegaanada Puntland oo aan halkan maalin walba ku soo gudbino. Haddii aan ku bilaabo sanad iyo bar ayaa laga joogaa markii uu bilaabmaday dagaalka ay dowladda Puntland kula jirto kooxaha argagixisada ee Daesh ee ka dagaalamaya buraha calmiskaad ee gobolka bari ee Puntland. Qorshuhu wuxuu ahaa in mar hore la soo afjaro kooxda Daesh, balse ilaa hadda dagaalkoodii waa socdaa. dhowaan ayaana lagu daray muddada kooxdaasi lala dagaalamayo. waxay ahayd qorshuhu in sanadkan bilaabanaya 2020 in gabi ahaanba kooxda la soo afjaro oo dagaalka onkod gobolka Sanaag iyo buraha calmiskaad uu bilaabmado lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab, balse muddo kordhin ayaa loo sameeyay dagaalkaasi muddada uu sii socon doono. waxaana kula wadaagayaa qorshaha ama aan dhahe arinta hadda la ogaaday oo dadka reer Puntland ay falanqeynayaan oo la isleeyahay qayb ayay ka tahay in uu dagaalkani sii socdo kooxda Daeshna la dhameystiri waayo. muuqaalkan marka hore ila daawo kadib ayaan falanqeynaynaa sababta arintan ama dagaalku uu wili u sii socdo qaybna arintan ay tahay. basaaso weeydi goormaad garowe ka soo baxday? shalay caawa waxa seexanaysan jidka waxa ku seenaday banaanka weeydi. maxaad ka doonaysaa Boosaaso? waa shaqada weeydi saaxiib. ma ka sii gudbaysaa mise waa shaqo? shaqo miyaa mise waa ka sii gudbay? macnaa waa ka sii taariibe weeydi markii labada bishi markii shaqeysnimo garatay wala tagisa bas Yamani weey. kantaroolada su'aalo ma leedin weydiiyaa ciidamada? shorta weey. shurda shorta markii tagno hal ka wada tagisa dhibaato ma leedahay shorta weey. marka soo maraysan kantarool Boosaaso garowe aad ka soo baxday shurdadu ma kula hadashay? ciidamada su'aalo ma ku weydiiyay? waxa ku sheegay wiilka weeydi aga ku soota war basaaso waxa ku jira markii ku sheego ma garanaysid waa shaqadii waa ku jira walaalo dhibaato ma leedahay miskiin wada iska soo waa ku sheegay. ciidamada ammaanka booliska ayaaba soo fasaxaya oo u fududeynaya habka socdaalkooda ayadoo ay jiraan amarkan dabcan hore u soo baxay. nabadgelyo nabad taga bye bye ayaa shukran maca salaam akhi. waa tahay muuqaalka waa daawanay. waxa ka muuqda dhalinyaro ka soo haajirtay dalka Itoobiya kuwaas oo ku sii jeeda magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland oo badhigu ah dagaalka lagula dagaalamayo kooxda argagixisada ee Daesh. sida la socontaan intiina badanba muddadii uu dagaalkaani socday waxa lagu qabtay dad aad u tiro badan oo ka tirsan kooxda Daesh oo dowladda Puntland ay u qorshaysay ama ay ku hayso xabsi gaar ah. dagaalkana markii uu dhamaado la soo bandhigi doono. dadka ugu badan oo halka lagu qabtay waxay ahaayeen dad ajaanib ah. dadka ajaanibta marka laga yimaado dadka ugu badan waxay ahaayeen Itoobiyaan. dhalinyaradan Itoobiyaanka ah intooda badan waa la khaldaa oo kooxda Daesh dhankeeda ayaa loo leexiyaa. waxayna sidaas ugu biiraanin kooxda Daesh. Puntland oo ogaatay arintan ayaa bilowgii gabi ahaanba joojisay dadkii Itoobiyaanka ahaa ee soo gali jiray gudaha Puntland intuu dagaalkaasi socday. madaxweynaha waraaq uu soo saaray ayaa lagu joojiyay iyo wasaaradda arrimaha gudaha in aan cidna ay soo gali karin oo xuduudaha Puntland ay xiran yihiin. hoteelada iyo sidoo kale meelaha dadku ay seexdaanin ayaa iyagana lagala dardaarmay in cid aysan garanayn ay hoteeladooda ay dejiyaanin. arinta marka laga yimaado xuduudahana sidoo kale waa la xiray. marka arinta laga yimaado oo waxa la sameeyay haddana in la daadgureeyo dadka Itoobiyaanka ah ee ku sugnaa deegaanada Puntland Garowe, Boosaaso, Qardho, Gaalkacyo, Carmo kulli waa laga daadgureeyay oo waxa lagu celiyay dalkoodii Itoobiya. waxaana la ogaaday in dhalinyaradan la duufsado oo kooxda Daesh lagu daro markaasna ay ka mid noqdaan dadka ku soo duulaya Puntland oo dagaalka qayb ka noqonaya ayaa la ogaaday. sidaas ayayna Puntland u joojisay. balse maxaa dhacay muddo kadib? Itoobiyaankii sidiiba u socdaan wadadana waa u qulqulayaan. sida hadda muuqaalka aad daawanayseen aad ka arkayseen nimankan dhalinyarada ah waxay sheegayaan
in ay laamiga ama garawaya markay ka soo baxayaanin ay si caadiya ay u soo socdaanin oo laamaha amniga ay soo sii daayaanin oo dhahaan dad masaakiin aad tihiin iska socda oo saa lagu sii daayo balse anigu haddaan ka tago magaalada aan joogo oo aan u socdo magaalo kale waxa la weydiinayaa waxa la weydiinayaa meeshaan ka imid meeshaan ku socdo inaan waalidiintay waco waxaasoo dhan ayaa lagu xirayaa qofka muwaadinka ah ee reer Puntland laakiin dadka ajaanibta ah waxa la leeyahay wadada masaakiin wadada iska maraya socda waa la leeyahay sidoo ninkaan u sheegayo anigu ma oran waa sida uu ninkaan u sheegayo marka arintan waxa ay qayb ka tahay oo dadka reer Puntland ay aad u falanqeynayaan shalay ilaa maanta in Etoobiyaanku ay qayb ka yihiin ama dhalinyarada yaacaysa kooxda Daesh ay leexsanayso intay jidka u gasho ama ay jiraaniinba dad ciidamada u qora oo kooxda u soo leexiya dhalinyaradan wadada maraysa maadaama ay yihiin dhalinyaro iska socda oo boosaas iska gelaya qaarna ay kasii tahriibayaan marka arintan ayaa la leeyahay qayb weyn ayay ka tahay oo waxa weeye waxay dagaalka inuu sii socdo qayb weyn ayay ka tahay ninkan isaguna sawiraantiisa inii muuqdo waxa uu sheegay in Puntland markuu soo galayay uu soo maray Ethiopia iyo Kenya ka bacdina Hargeysa soo galay saasna uu Puntland ku yimid cid la hadashay iyo cid celisana aysan jirin oo bahalkiisay wuxuu sheegay inuu hadda Puntland isku soo dhiibay ciidamada Puntland gacanta ay ku hayaanin kadib markii xaaladii ay ku qaraaraatay gaajo ay u baqtiyeen dameeradii suu sheegayo dameerihii ay cuni jireenna ay ka dhamaadeen wuxuu sheegay inuu naf soo biday inuu isku soo dhiibo ciidamada difaaca Puntland balse dowladda Puntland ayaa laga warsugayaa in arintan ay wax ka qabato maadaama markii hore joojisay haddana laga sii jeensaday in laga qabto inta badan marka dal galaysid dalalka inta badan xuduudahoodu waa xiran yihiin mana ahan wax waqti yar ku koobane inta badan waa wax iska socda oo dalka amaankiisa sida loo sugo in waxa weeye dalka dadka soo galaya la socdo iyo waxa ay ka soo doonayaan in dalal walba saas ayuu ku dhaqmaa Puntland arintan waxa weeye way samaysay laakiin laguma sii dhaqmin oo waxa weeye wax moodaa in go'aamada dowladda ay yihiin kuwo iska jilicsan oo aan hirgelin intaas ayaa muuqaalkeena ku soo gabagabeynaa balse waxaan ka codsanayaa in YouTube-ka ku soo birto oo subscribe-ka aad ii saarto sidoo kalena gambalelka furto si ay ku soo gaaraan barnaamijyada maalinlaha ay halkan ku soo gudbino aragtidaadana ka dhiibo arintan dhalinyaradan soo gashay iyo adigu waxa aad isleedahay qayb miyay ka yihiin dagaalka ka socda Puntland maxaa la gudboon dowladda Puntland inay qabato dadka shacabka ah oo iyagu ah kuwa iska aamusan maxaa iyagana la gudboon maadaama dadka ugu badan oo dhibaatada soo gaarayso haddii wadankani uu khalkhal amni galo iyaguna qayb ka yihiin adiga aragtidaada waa noo muhiim qaybta commentiga nagu qor muuqaalkana like saar aad baa u mahadsantahay